aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shacbigan ballaaran reer Taleex ee maanta halkan nagaga hor yimi aad baan ugu hambalyeynaa ugu bogaadinaynaa cadawgii ay ka hortageen isxoreeyeenna waxaana xaqiiqo ah doorkii aad ku lahaydeen inuu ahaa door weyn sida ay uga huleelaan Taleex iyo dhulkeenna waxaa haddaba iyana mudan maalmahan warar baan anigu Hargeysa ka maqmaqlayeeyo qolyaaba lahaa siyaaru noogu imanaya wadaad maya hadda hawshan haysay waxay ahayd say meeshan uga baxaan midda uun laakiin Maxamed Cabdulla Xasan muxuu yiri wuxuun bay xushleeyaan sida xabashiday dooray haddii ay isleeyihiin propagandada iyo warka beenta ah ee غير mas'uulkoodu fidinayo kuwa maamulkooda ugu sareeya waana kan waa joognaa waana joogaynaa dhulka yagana waa gacantaanu ku qabanaynaa waxaan laba kelmadood oo mahadcelina u jeedinaya wafdiga hadda aan wada soconay Cali Khaliif galay wafdiga ballaaran ee kale ka yimid doon ana wariyaha kale oo ka tagaya inta dadku ay kala badnaan maxamuud cali sheekh waxa uu ka dhacay wareer balinta ka soo dhawow waxa la oran doonaa hadii kale qaar ba ka lumay marka daadeeda gaadhana walayna xantaa marka waxaan leeyahay walaalayaal anaga dhammaan farxad weyn bay noo tahay inaan ilaahay inoo suura geliyey inaan si nabada madaarkan uga soo degno ummadda laxaad kaalihi nagu soo dhawayso garaad maxamuud mashqare iyo madaxweynaha mudanayaal ninka si gaar ah idin leeyahay hadda ilaa waqti dheer baadka taagnaydeen hadda halganka aad ku jirteen baa qasbay dhalinyarta mutada koowaad wiilal niman aad u dhalinyaro meelahan heeska akhriyayana wada garanna waxaa leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan doonayaa inaan laba kelmadood uu ku daro intaa sida garaanku sheegay madaxweynuhu sheegay waqti baynu isu helaynaa insha Allah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad ku soo noqdo maamul goboleedka magaalada madaxda Taleex waxaan aad u salaamayaa ciidamada maamul goboleedka Khaatumo shacabka dhammaan isimada madaxweynaha kulligii waxaan idinku salaamayaa saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad maqasheen Khaatumo maanta agoon maaha rajana maaha waxay leedahay dad aad u baaxad weyn waxay leedahay saaxiibo aad u baaxad weyn waxay leedahay shacabkeedii oo dhan oo aad sudeen beesha reer Khaatumo oo ka guuray saddexdii dardaar ee la sheegi jiray way jabeen waa la jabiyey yaa idinku khaldin mar dambe waxaa jira saddex dardaar yaa idinku khaldin mar dambe reer Hebel Khaatumo state of Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya salaamka bacdi waxaan ugu soo dhaweynaynaa dowladdiinii dalkiinii dadkiinii baan ugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada waxaad baynu joognaa waqtiguna waa kulu yahay qoraxduna ugu kulushahay waxaan hadalku soo ururinayaa wixii wara waswareysanaynaa waanu soo dhaweyn weeye waxaanu hadalkaygu soo dhaweyn weeye hooyo waa laydinka sugayey waa laydin shirhayey waa lagu faraxsan yahay aad iyo aad baa loogu faraxsan yahay imaatinkiina waxaan u sheeganaa marka ciddii kale oo hawsha shirka wax ku leh iyaguna maadaama ay yimaadeen odayaashii ugu magaxoonaa ay maanta joogaan garoonka hadde waxay la tahay waa markhaanti uma baahna markaa qorax soo baxday sacab laguma qarin karo markhaanti uma baahna in nin kale maanta meel kale ku wareego yidhaahdo waxbaa dhiman laba cali baa maanta jooga waxaanu leenahay dalkiinii baa timaadeen waad muddo ka maqlaydeen oo insha Allah imaatinkiina roobku uu la socon doona sidaynu wada ogsoonnahayba shir baa inoogu qabsoomaya halka kan golayaashii maamulku uu ka tirsanaa maxay ahayd hadibkeeda leeyahay hordhacoodii waa kan marka golaha xukuumadda laga reebo